dadka badankooda islaamku waxay ku dhashaan iyagoo xor ah dhulkoodana jooga, laakiin ninkani sheekadiisa way ka duwan tahay cid kasta. Waa wiil u dhashay boqortooyada Faris. Waxa uu ahaa wiil amiir ah oo aabbihiisana uu aad u jeclaa. Waxa uu soo maray diimo kala duwan. Waxa uu caabuday dabka. Waxa uu u wareegay kaniisadaha Kiristaanka. Waxa uu u safray magaalooyin badan isagoo raadinaya hal shay oo keliya, waana xaqa. Intii uu ku jiray safaradaas, waxaa lagu qiyaameeyey jidka, waxaana laga dhigay addoon la iibsado lana iibiyo. Waxa uu soo maray in ka badan 10 sayid ka hor intuusan helin xorriyaddiisa. Waa ninkii beddelay taariikhda dagaalada Carabta. Waa ninkii soo jeediyey fikraddii Khandaq ee badbaadisay muslimiinta. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi, Salmaan waa mid ka mid ah ahlulbeydka. Soo dhowaada saaxiibayaal. Aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Salmaan Al-Farisi. Intaana muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe sar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegde oo na sii sheergare. Magaciisa asalka ah waxa uu ahaa Rusbih, wuxuuna ku dhashay magaalada Jey ee hadda loo yaqaano Isfahaan. Aabbihiis waxa uu ahaa madaxa tuulada, wuxuuna ahaa nin aad taajir u ah. Aabbihiis aad ayuu u jeclaa, heer uu gaaray inuu guriga ugu xidho sida gabdhihii oo kale si aysan dhib u soo gaarin. Diintooda waxay ahayd majuusiyadda. Salmaan aad ayuu ugu daalay diintaasi ilaa uu ka noqday qaadimka dabka. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbihiis ayaa u diray beer ku taalay meel fog. Jidkana waxa uu ku arkay meel kaniisad ah, wuxuuna maqlay codad aad u macaan oo tukanaya. Ciise ayaa galay, wuxuuna galay kaniisaddii, wuxuuna daawanayay cibaadadooda ilaa qoraxda ay ka dhacaysay. Markii uu guriga ku laabtay, aabbihiis wuu xanaaqay. Salmaanna waxa uu ku yidhi, aabba, diinta dadkaas ayaa ka fiicanteena. Aabbihiisna isagoo ka baqaya in wiilkiisa uu lumo, wuxuu ku xidhay silsilad, kadibna wuxuu ku xidhay qolka. Halkan ayay ka bilaabanaysaa halgankiisa. Salmaan waxa uu ahaa wiil raaxo ku nool, laakiin markii uu arkay xaqa, wuu diiday inuu ku jiro mugdigaas, xitaa haddii silsilad lagu xidhay. Salmaan waxa uu fariin u diray Kiristaankii, wuxuuna ku yidhi, marka uu yimaado safarka u socda dhulka Shaam, ii soo sheega. Markii safarkii uu yimaadayna, Salmaan silsiladdii ayuu iska jabiyey, si dhuumaalaysi ayuuna u raacay safarkii. Waxa uu gaaray Shaam, wuxuuna dadkii weydiiyey, yaa ugu cilmi badan diintan? Waxaana loo tilmaamay baadari kaniisad weyn joogay. Salmaan waxa uu u tegey ninkii, wuxuuna ku yidhi, waxaan rabaa inaan kuu adeego oon cilmina kaa barto. Baadariga waxa uu ahaa nin xun, dadka ayuu sadaqada ka qaadi jiray, laakiin masaakiinta ma siin jirin, ee isaga ayaa keedsan jiray. Salmaanna wuu nacbaday ninkan. Markii uu baadarigii dhintay, Salmaan waxa uu dadkii u sheegay xaqiiqdiisa, wuxuuna tusay qasnadihii dahabka ahaa ee uu keedsan jiray. Dadkiina waxay meydkiisii ku dileen dhagaxaan. Kadibna waxaa yimid baadari kale oo aad u fiican oo cibaado badan. Salmaanna wuu jeclaaday. Markii uu ninkii dhimanayay, Salmaan waxa uu ku yidhi, yaan u tagaa geeridaada kadib. Ninkiina wuxuu u diray nin jooga Muusal. Salmaan wuu safray, wuxuuna tegey Muusal. Markii ninkii Muusal joogay uu dhimanayayna, waxa uu u diray nin jooga Nusaybiin. Ninkii Nusaybiin joogayna, markii uu dhimanayay, waxa uu u diray nin joogay Amuuriya. Sidaas ayuu Salmaan ku bixiyey dhallinyaronimadiisii oo dhan, isagoo ka guuraya waddan una guuraya waddan kale si uu u helo cilmi sax ah. Ugu dambayntii, ninkii ugu dambeeyey ee Amuuriya joogay, markii uu dhimanayay, Salmaan waxa uu ku yidhi, xageen aadaa hadda? Ninkii odayga ahaa waxa uu ku yidhi, wiilkaygiiyow, ma garanayo cid kale oo diinta saxda ah haysataa, laakiin waxaa soo dhowaaday wakhtigii uu soo bixi lahaa nebigii ugu dambeeyey. Wuxuuna ka soo bixi doonaa dhulka Carabta, wuxuuna u hijroon doonaa dhul geeda timir ah leh oo 2 buurood oo dhagax madow ahna u dhaxeeyo. Calaamadaha nebigaasna waxaa ka mid ah, haddii hadiyad la siiyo, wuu cunayaa, haddii sadaqa la siiyana, ma cunayo. Garabkiisana waxaa ku yaalla qaatimun nubuwa. Salmaan waxa uu go'aansaday inuu aado dhulka Carabta si uu u helo nebigaas. Salmaan waxa uu la heshiiyey koox ganacsato Carab ah, wuxuuna siiyey lo'diisii iyo xoolihiisii oo dhan si ay u geeyaan dhulka Carabta,
wayna ka oggolaadeen. Laakiin markii ay gaareen meel la yidhaahdo Waadi Alqura, way qiyaameeyeen. Ninkii xorta ahaa waxay ka dhigeen nin addoon ah, waxayna ka iibiyeen nin Yahuudi ah. Salmaan waxa uu noqday addoon beeraha ka shaqeeya. Muddo kadib waxaa yimid nin kale oo Yahuudi ah oo reer Bani Qurayda ah, wuxuuna iibsaday Salmaan, wuxuuna geeyey magaalada Yasrib oo hadda loo yaqaano magaalada Madiina. Markii uu Salmaan gaaray magaalada Madiina, uu gartay waa dhulkii timirta badnaa lahaa, waa dhulkii labada buurood u dhexeeyey ee macallinkiisii uu sheegay. Wuxuuna ogaaday inuu gaaray meeshii uu rabay, laakiin weli waa addoon oo ma bixi karin. Maalin maalmaha ka mid ah, Salmaan waxa uu saarnaa geed timir ah dushiisa, wuxuuna maqlay sayidkiisii oo la hadlaya nin kale, kaasoo ku leh, Ilaahay ha naclado reer Aws iyo reer Khasraj. Quba ayay ku urursan yihiin. Nin ayaana u yimid, wuxuu sheeganayaa inuu nebi yahay. Salmaan jidhkiisa ayaa gariiray, geedkii ayuuna ka soo booday. Habeenkii markii la gaarayna, timir ayuu qaatay, Quba ayuuna aaday, wuxuuna u galay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Salmaan si uu u ogaado in nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu yahay nebigii xaqa ahaa, 3 imtixaan ayuu ka qaaday. Markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu u galay, wuxuu ku yidhi, waan ogahay inaad tihiin dad musaafur ah, tani waa sadaqo aan idin keenay. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee saxaabadii ayuu ku yidhi, cuna, laakiin isaga gacantiisa ma gelin. Salmaanna waxa uu yidhi, tani waa kow, sadaqo ma cuno. Maalin kale timir kale ayuu u keenay, wuxuuna ku yidhi, tani ma ahan sadaqo, ee waa hadiyad aan idinku maamuusayo. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu cunay, saxaabadiina wuu siiyey. Salmaanna waxa uu yidhi, tani waa 2. Maalin kale nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isagoo jooga xabaalaha ayuu gadaal ka maray si uu u arko garabkiisa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu gartay waxa uu doonayo, isla markiiba go'y ayuu ka qaaday dhabarkiisa. Salmaan markii uu arkay qaatimun nubuwa oo ahay shabadii nebinimada, wuu ku booday, wuu dhunkaday, wuuna ooyey. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa dejiyey. Salmaanna waxa uu nebiga uga sheekeeyey qisadiisii dheereed. Inkastoo uu qaatay diintii Islaamka, haddana weli waxa uu ahaa nin addoon ah, mana uusan awoodin inuu ka qayb galo dagaalkii Badar iyo kii Uxud. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu ku yidhi, Salmaanow, iska xoree ninkan. Sayidkiisii Yahuudiga ahaa waxa uu ku xiray shuruud adag oo aan macquul ahayn. Wuxuuna yidhi, waa inuu bixiyaa 40 waqiyadood oo dahab ah iyo inuu beero 300 oo geed oo timir ah. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa u yeeray saxaabada, wuxuuna ku yidhi, walaalkiin caawiya. Saxaabadii ayaa keenay geedihii. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laftiisa ayaa gacmihiisii barakaysnaa ku beeray geedaha dhammaantood, marka laga reebo hal geedoo uu beeray Cumar. Dhammaan 300 ee geed way wada baxeen markii laga reebo geedkii Cumar beeray. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa geedkii Cumar soo bixiyey, kadibna dib ayuu u beeray, wuuna baxay. Dahabkiina Alle ayaa u sahlay, sidaas ayuuna Salmaan ku noqday nin xor ah. Sanadkii 5aad ee Hijriyada, Carabta oo dhan ayaa isku soo bahaysatay inay Madiina tirtiraan. 10,000 oo askari ayaa soo socda, muslimiintana waxay ahaayeen 3,000 oo keliya. Madiina dhinac walba buure ayaa ka xiga marka laga reebo dhanka waqooyiga oo furan. Haddii ciidankaasi uu soo galana waa dhammaadkii Islaamka. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu qabtay shir degdeg ah. Saxaabada oo dhan waxay yaqaaneen dagaal foolka fool ah, laakiin Salmaan oo cilmi u lahaa dagaalada boqortooyada Faris ayaa istaagay. Wuxuuna yidhi, yaa Rasuulallah, annaga markii aan joognay dhulka Faris, haddii fardoole ay nagu soo duusho, waxaan qodan jirnay godad naga celiya. Fikraddu waxay ahayd mid cusub oona Carabta weligeed arag. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuu ka aqbalay. Asxaabtii oo dhan waxay qodeen godkii. Markii ciidankii ay soo gaareen, asxaabtii waxay arkeen waxaysan filanayn. Fardooleydii way soo gudbi waayeen. Fikraddii Salmaan ayaana badbaadisay caasimaddii Islaamka. Salmaan cimri dheer ayuu noolaa. Wakhtigii Cumar ibnu Khadaab waxaa laga dhigay
guddoomiyihii magaalada Madaa'in ee caasimaddii hore ee Faris. Balqiyaas, wiilkii shalay cararayay isagoo qaxooti ah, maanta waxa uu xukumayaa caasimaddii aabbihiis. Markii uu dhimanayay, wuu ooyey. Sacad bin Abi Waqaas ayaa weydiiyey oo waxa uu ku yidhi, maxaa kaa oohinayaa adigoo nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu dhintay isagoo uu raalli kaa yahay? Salmaan waxa uu yidhi, rasuulku waxa uu nagula dardaarmay in sahaydeenna dunida ay noqoto sida sahayda ninka safarka ah oo kale, laakiin fiiri hantida gurigayga taalla. Sacad waxa uu yidhi, waxaan eegay gurigiisa, mana aanan arag weelka biyaha, saxan iyo gogol yar waxaan ahayn. Intaas ayaynu u arkayay hanti badan oo xisaab leh. Salmaan al-Farisi waxa uu ahaa tusaalaha dhabta ah ee qofka xaqa raadinaya. Waxa uu ka tegey raaxada aabbihiis, wuxuuna doortay addoonsi iyo rafaad si uu u helo diinta xaqa ah. Fadlan daawade, haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, fikirkaaga ku aadan qisada noogu reeb qaybta kommentiga. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegde oo na sii sheelgaree si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kale ah oo qisooyinka jecel. Sidoo kale haddii aad jeceshahay qisooyinka nebiyada, waxaan kuu diyaariyey dhammaan qisooyinka 25 nebi ee Quraanka lagu sheegay, waxaadna ka helaysaa channelka. Sidoo kale waxay kugu diyaarsan yihiin playlist gaar ah, halkaas ayaadna ka daawan kartaa.